بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن ونكسن قيادة قيمها iyo qadarinta naga mudan naga daawanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan magaalada Amsterdam kula yeelanayno madaxa mashaariicda hay'adda EFSAN Dr. Sahara Siyaad Neelaye oo wax badan ka hadasho arrimaha haweenka gaar ahaan tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed guud ahaan Dr. Sahara Siyaad Neelaye in ka badan 20 sano waxay ku guda jirtaa caawinta haweenka Soomaaliyeed iyo waliba dhallaanka ayadoo mashaariic arrimo badan oo arrimahaasi ku saabsanna la qabatay wax badanna laga yaqaano ama loogu yaqaano wadankan Holland. Dr. Sahara Siyaad Neelaye oo barnaamijkan intiisa badan ay uga hadli doonto tacadiyada haweenka iyo waliba dhinaca gudniinka ayadoo gudniinka gabdhaha guud ahaan ayaan xafiiskeeda maanta ku soo booqnay waxaan markaas aan weydiin doonaa su'aalo dhowr ah oo aad xiiseynaysan oo isla markaasna ayada ay ka jawaabi doonto Dr. Sahara hadii aan nahay bahda SNTV maanta waxaan kugu soo booqnay xafiiskaaga ayadoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo dhinaca haweenka Soomaaliya maadaama wax badanna aad arrimahan ku guda jirtay khabiir dhinacaasna aad tahay wax badanna falanqeysa dad badanna caawisay inta aan u gudubgelin gudniinka gabdhaha oo kale marka hore bal su'aal guud ahaan aan ka weydiin doonaa arrimaha haweenka iyo waxaad kala socotay tacadiyada haweenka Soomaaliyeed waa maasantahay marka hore waxaan mahad u celinayaa maxaa ahaa TV-ga SNTV oo TV-ga qaranka Soomaaliyeed ah iyo gaar ahaan adiga waa run waayadan dambe waxaa si Soomaaliya oo ku batay macna tacdiyada haweenka oo muxuu ahaayay oo kala nooca tacdiyada dilkiiba ku batay kufsigiiba ku batay waxyaalo fara badan oo waagii hore naga yaray ayaa moodaa gaar ahaan 10 sano ugu dambeeyay inay ku soo kordheen oo waxay ka dhacaan muxuu ahaayay magaalooyinka waxay ka dhacaan tuulooyinka waxay ka dhacaan hatta xiriirka qaxootiga ayay macnaa ay ka dhacaan gabdho umuloo hatta umul ku jirto la dilay ayaan idaacada ka maqlaayay macnaa bishii hore marka arrimahan macnaa arrimo nagu soo ziyaado waaye sida daraadeed Soomaaliyan marka dib u fiiridid dhaqanka ayna ahaan Soomaaliya waa dhaqan runtii u heeliya marka dhaqan ahaan aan ka fiirino u heeliya haweenka macnaa waxaa la dhigi jiray hatta dhigeeda madahida dhaqankeeda leedahay gabdhaha Soomaaliyeed dhaqan ahaan sharaf bay lahaayeen laakiin waayadan dambe waxaan moodaa in arrintaasi nagu soo korodhay wax qabadkiina oo sidii la rabay oo na ahayn macnaa arrintii waa in dadkii la wacyi geliyo sabab ayaa keenay waxa fiican in sababihii la baaro bulshadii macnaa laga wacyi geliyo dhibaatooyinkaas ayaa iska jira laakiin wax qabadkii sidii la rabay runtiina torayso tacdiye fara badan jira kulli wadankiina waa burburay inkastoo hadda aan soo dhismayno dawlad wax walba way burbureen sidii wadanka u burburay wax walba burbureen haddana dawladda soo dhismayso dawladda jirto arrimihii haweenka waxbaa laga qabanayaa howlo badan aa socda ra'yi ahaan bal adiga waxaas dhihi lahaa dawladoo kale iyo in arrimaha sida wax looga qabto maadaama qabiir dhinaca haweenka u dooda aad tahay bal ra'yigaaga bal sidee wax looga qaban karaa runtii waa run dawladan haysanaa hadda meelba meel macnaa dawlad waa jirtay waayadan dambe midba meelba ayay soo gaarsiiday gaar ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay in la sameeyo macnaa wasaarad u gaar ah gaar ahaan kula arrimaha qoyska muxuu ahaay oo arrimaha qoyska ama muxuu waxaan la yiraahdaa maaragtay xuquuqda aadamiga ama human rightska runtii muxuu ahaa waayadan dambe oo howlo fara badan qabteen oo wasiir kale oo u dhiiba oo meel soo gaarsiiyay waxaan jeclahay macnaa intaan ka badan inaan macnaa sameyn doono oo qorshahaas goonida oo macnaa muxuu horumarinta haweenka ku saabsan macnaa in la siiyo mudnaanta koowaad hadda waxyaalo fara badan dhinacii nabadda waa muhiim dhinacii kale laakiin maadaama wasaaradan loo yeelay macnaa in wasaaradii ay la imaato macnaa istaraatiijiyad cad ama muxuu ahaayay balaan cad ururadan kale oo haweenka ay jiraan oo jira haddana ay ayagii noqdaan kuwii hormoodka u noqon dawladda la garab galo istaraatiijiyada dawladda dhistay ama wasaaradaas dhistay macnaa in macnaa la gaarsiiyo wadankii oo dhan wacyigelin maamul goboleedyaad jira maamul goboleedyada waxay leeyihiin dawlad goboleedyo waxay leeyihiin wasiir haweenka ah macnaa waxa waa inay isla shaqeeyaan wasiiradaas haweenka ah iyo wasiirkan macaa wasiirada oo federaalka inay isla shaqeeyaan Soomaaliya waagi waxa jiray muxuu ah dawladihii macnaa Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay ururka haweenka urur aad u xoog badan oo macnaa uu ahaa wasaarad haweenka ma jirin haddana runtii waxay qaban jireen wacyigelin aad muhiim u ah oo arrimaha bulshada arrimaha caafimaadka arrimaha waxbarashada arrimaha tacadiyada haweenka waxyaalo fara badan waxaan rabnaa hadda sidii macnaa muxuu ahaaye arrimahii oo waagii hore jir inaan dib u soo noolayno oo ururada haweenka ah
muxuu ahaa xaafadka bilaaw ilaa ay qaran ay isku xirmaan ay wacyigeliyaan dadka macnaha gaar ahaan tacadiyada haweenka macnaha xooga la saaro aada u mahadsantahay doctor saad u sharaxday waxaan filayaa dadkii aada la hadashay iyo wacyigelinta iyo ra'yigaaga in si fiican loo qaadan doono haddii aan usoo laabano waxaad aada iyo aada uga shaqeysaa arrimaha gudniinka wax badanaa ka qabatay wadanka la jooga muddo ka badan 20 sano howlaha ku guda jirtaa kasii badanba waxaa jirta dhawaan in tuulo u dhow Dhuusamareeb gabar 10 jir oo la yiraahdo Deeqa Daahir inta la guday haddana dhiig bax u dhimatay bal arrintaas say ku taabatay maadaama wax badan ka qaban jirtay arrintan aad dadka ka wacyigelin jirtay bal arrimahaas ay ku taabtay والله runtii muxuu ahaay gabadha yarta saqiirada horta Allah u naxariisto cidii ay ka baxdaan Allah sabar iimaana ka siiyo waa run aniga hooyaan ahay waa gabadhaydii oo kale waa arrin runtii itaabatay gaar ahaan sabab looga dhigay gudniinka aniga aan muddo ku jiray marka waqtigaas macnaha muxuu ahay aniga waa maqlay fasax ayaa lagu jiray in arrimahaas ay muxuu ahaay ay dhaceen gabadhaas ay u dhimatay tuulo la yiraahdo olol miyama oo Dhuusamareeb u dhow ka bacdina isbitaalka Dhuusamareeb sidaan ku war hela la keenay meeshaasna ay ku geeriyootay marka waa arrin runtii naxdin leh laakiin waxyaalo badan ayaa arrimahaas sababay markaan aniga aan arkay muxuu ahaay meesha dadku waxay ahaayeen dad iska heerguuraa oo tuulo degan oo wacyigelin weligood helin oo kaligeed lama gudan ilaa iyo dhowr gabdhood ayaa lala guday hataa sidaan maqlay muxuu waxaa aniga arrintan runtii information fiican iga siiyey Ifraax Foundation ama Ifraax Axmed oo meesha socdaal ku tagtay ayaa wargelisay xalan barnaamijkeeda SNTV-ga laga soo saaray marka sidaa daraadeed macnaha waa dad heerguuraaya oo weligood information ama wacyigelin ama macluumaad gudniin ku saabsan aan helin marka sidaa daraadeed macnaha waxay aaminsan yihiin gudniinka ama diin ha u aaminsanaadaan ama dhaqan ha u aaminsanaadaan marka waa dhibaato ka timid dhinaca wacyigelinta hooyada iyo aabaha ayaga waxun kama ay wadin waxay ka wadeen gabadhoodaas waxay aaminsanaayeen inay ku sameeyaan barina loo guursado ujeedada u dambeysa saas ay ahayd laakiin Sahro maadaama kiiskan Deeqa Daahir gabadhan 10 jirka ah dhiig baxa u dhimatay oo la guday oo ka dhacay meel u dhow Dhuusamareeb gaar ahaan ah deegaanka Galmudug ee dowlad goboleedka Galmudug maxaad isleedahay oo maxaa ugu baaqaysaa dowladda Galmudug wasaaradda haweenka iyo qoyska Galmudug iyo dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada halkaas ku nool bal baaqad u jeedin lahayd maadaama kiiska agtooda waa run kiiska wuxuu ka dhacay deegaanka Galmudug gaar ahaan tuulooyinka ka tirsan oo Dhuusamareeb u dhow marka waxaan macnaha muxuu ahaayay aan ka codsanahay wasaaradda gaar ahaan haweenka iyo macnaha wasaaradda oo dhan sida caafimaadka oo kale inay arrintan ay iskala shaqeeyaan ay bilaabaan barnaamij muxuu ahaayay oo macnaha qorsheysan ay la kaashanayaan hataa muxuu dowladda dhexe ama hay'adaha jira si arrintaani mar kale ayna u soo noqonin ayna noo noqoto macnaha cashar wax laga baran karo marka sidaa daraadeed waxaan macnaha ku adkaynayaa dowladda muxuu ahaa goboleedka Galmudug inay arrintan mudnaanta koowaad siiso runtiina waan arkay Sheekh Shaakir wuu ka hadlay arrintan waxaana iyo biliiska iyo kulli way ka wada hadleen sidaa daraadeed macnaha waxaan rajeynayaa dhinaca wacyigelinta in arrintan loo badiyo dowlad goboleed ahaan Galmudug arrintan wacyigelinta gudniinka waxaa badanaa laga wacyigeliyaa dadka dibadda Soomaalida dibadda joogta kuwa gudaha jooga Muqdisho kale waxaa laga yaabaa inay ku sameyntaa ama Hargeysa kale meelaha waaweyn sidee inta looga qaado xamar iyo dadka jooga wacyigelintaas loo sii ballaariyo oo ilaa tuulo loo geliyo sidee ku noqon kartaa ra'yigaaga arrintaas ururkeena dalada Soomaaliyeed ee Efsan arrintan muddan ku jirnay waxaan markii hore aan ku bilownay dadka Soomaaliyeed waayo anaga halkaana nimid dhaqankayna anaga wadana wadan oo waxba ka ogeyn arrintaas ayaan dhex nimid sidaa daraadeed anaga ayaa qaadanay muxuu ahaa initiative-ka anaga ayay naga timid muxuu anaga ayaa bilownay markaan anagii aan bilownay maanta anaga macnaha Efsan ahaan ilaa dhowr iyo 10 sano waxaan ku ahayn mashquul Soomaali kaliyana macnaha muxuu ahaa ma agaasinay waxaan hataa muxuu ahaa waay aragnimadii anaga dadka Soomaaliyeed aan ku sameynay ayaan Afrikaanka kale aan u gudbinay marka waxaan la shaqeynaa hataa muxuu ahaayay oo wasaaradda caafimaadka macnaha anaga nagu taageertaa
waxa waaye hataa afrikaanka kale macnaa wixii agaasinka oo arrintaana si gudaha wadanka oo dhan macnaa waa ka wadnaa anagoo la shaqaynayna West Africa East Africa dadka afrikaanka oo dhan Soomaali ku bilaawna laakiin intee kale mideeda kale hataa waxaan ka mid nahay inaan la shaqayno muxuu ahaayay dad badan oo muxuu ahaay oo partner ah oo European-ka ah oo Europe-ka ku jiro inaan macnaa aan la shaqayno macnaa arrimahan marka haddaan u soo laabto su'aal fiican ay ahayd sidee arrimahan macnaa loo geey karaa Soomaaliya aniga marar badan aan ka hadla waan sheegay diyaar waan u nahay waayo aragnimadan inta aan maanta waxa magaalooyinka kale dadka in laga wacyi geliyo magaalooyinka weyn oo kale sida magaalooyinka inta laga saaro idinka inta waa ka wadaan Soomaaliya waa tagtay ilaa Kenya iyo dhowr mar xataa waa tagtay wacyi gelinta waa waday magaalooyinka si in loo qaado dadka tuulooyinka loogu geeyo barnaamijkan oo san gabadha deeqo kale aysan gabdho badan oo Soomaaliyeed ku dhaceen mama waa su'aal meesha ku jirtaan ku dhaa waa muhiim in wacyi gelinta waxyaalaha Soomaaliya wacyi gelin way ka socotaa runtii laakiin dadkii baadiyaha ay lama gaarin dadkan oo dadheer macnaa miyaha ayay ahaayeen laakiin waqtigan xaadirka waxa jira hataa ma aragtay meediyaha macnaa social media qof kasta hataa muxuu ahaayay geel raacay maanta telefoon ayuu haystaa marka waxa waaye wacyi gelintii in dawladda ay horseed ka noqoto wasaaradda caafimaadka wasaaradda awqaafta iyo diinta wasaaradii haweenka wasaaradii muxuu ahaay warfaafinta siday waagi hore hataa Soomaaliya ahaa jireen in ay isu tagaan oo arrintan muxuu ahaay balaan macnaa laga sameeyo oo sidii waagi ololaha horumarinta oo kale oo farbarashada la baranayo ilaa baadiye la geeyo guud ahaan oo dhan waxaan la yiraahdaa gender based violence gudniinka kaliya ma aha tacadiyada haweenka oo dhan macnaa in macnaa la wacyi geliyo oo ilaa iyo tuulo ilaa iyo baadiyahaas macnaa dadka la gaarsiiyo waa arrin muhiim ah waayo Soomaalida hadla runtii oo dadkan oral macnaa mujtamac lagu tilmaamayo oral society-ga la yiraahdo hatta macnaa dhibaatooyinkaasi waxaa lagu cabiri karaa dhinacii buraanburka dhinacii gabayga waxyaalahaas oo dhan waa dhaqan aan u leenahay mideeda kale aniga waxaan isleeyahay aan ku adkaynayaa macnaa kaalintii wadaadada laga rabay inay arrintan ka qayb qaataan weli sidii la rabay ma aha way maqan tahay macnaa waxa waaye inay wadaadada wixii ilaahay macnaa oo arrintan maadaama ayna diin ahayn inay dadka ka wacyigeliyaan masaajidadii dugsiyadii quraanka iskoolaadkii in wasaaradda waxbarashada ay xoog saartay in macnaa waxa waa qof kaliya arrintan ma qaban karee in loo wada guntado wixii caawinaada European-ka muxuu ahaayay email kasta sida Egypt loo caawino sida Senegal loo caawino sida Mali loo caawino annagana in loo caawino laakiin wasaaradii la timaada gaaraan wasaaradda haweenka arrin qorshe ka dhaxgalay dawladda wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka waxay soo saartay sharci dawladii hore hadda dawladdan ka horeysay sharcigii wasiirada waa tii la hor keenay wax badan si arrintan loo qabto wali baarlamaankii ma ansixinin sharcigaas marka hadii la ansixiyo waxa laga yaabaa u maleynayaa in wax badan arrinta iska bedasho bal ka waran sharcigaas maadaama aad soo akhrisay faa'iidada uu leeyahay mujtamaca Soomaaliyeed waa siyaasadda qaranka oo muxuu ahaayay oo joojinta arrintan waxaa la sameeyay aniga 2015 xamaran joogay waxaa sameysay wasaaradda haweenka gaar ahaan markay wasiirka ka ahayd Saara Maxamed Samatar marka arrintan macnaa muxuu ahaay waa hirgeliyeen wasiiradii waagaas joogay waa la ansixiyay laakiin waxay taalaa oo muxuu ahaa in laga ansixiyo u baahan waa baarlamaanka waa run waa kugu raacsanahay markii baarlamaanka ansixiyo macnaa hawshii waa wasaaradda waa u fududaanay way sii soconaysaa sidaa daraadeed ayaan waxaan ku codsanayaa baarlamaanka gaar ahaan gabdhaha baarlamaanka ku jiro oo u dooda xuquuqda haweenka inay arrintan macnaa qayb weyn ka qaataan si ay macnaa muxuu arrintan loo ansixiyo haddii arrintii la saxiyo la sharciyeeyo wixii maaragtay waa la fuli karaa laakiin ilaa iyo hadda macnaa muxuu ahaayay baarlamaanka ayay ka fadhidaan macnaa muxuu ahaay arrintaas aan raacsanahay aniga in arrintan ayna shalay bilaabanin Soomaaliya gaar ahaan waxaa ku amaanan gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan ururka haweenka Soomaaliyeed oo jiray halkan waxaan ku hayaa report laga qoray muxuu ahaayay waa 30 sano ka hor 1988 shirweynihii caalamiga ahay ee lagu qabtay magaalada Muqdisho bishii June ayaa muxuu ahaa reportkan oo ka soo baxay dad fara badan ay ka qayb galeen waxaa laga soo saaray muxuu ahaayay go'aamo badan talooyin badan macnaa waaga 30 sano ka hor waa waqti fara badan runtii
dagaalkii ayaana soo dhexgalay maahane hadda maanta hadday soomaaliya macnaa sidii ay usii jiri lahayd macnaa wax ayaa macnaa waxbaa kasoo bixi lahaayo waayo dadka afrikaanka wadamada afrikaanka ugu horeeya aan ahayn oo macnaa wax ka qabta haddana nasiib darrada na haysata waxa waaye mar kasta soomaaliya waxaa laleeyahay 98% gabdhahoodu waa gudan yihiin waxaan nahay adduunka number 1 marka number 1 kaas adduunka sidaa uga tegi lahayn aniga waan aaminsanahay maanta hadda tiradaas inaan ka yarnahay laakiin waxaa fiican in macnaha hataa xog la aruuriyo oo la ogaado macnaha muxuu ahaay xaqiiqda dhabta ah oo jirta si fiican sax waaye Soomaaliya muddo ku jirto saa sheegtay 1988 shirkii caalamiga ah loo qabtay magaalada Muqdisho in arintan looga hadlay ilaa ay haddana socoto waxaana sii raacisay in burbur oo dalka dhacay hadii dawlad jir lahaydna arrimahan si aad ah wax looga qaban lahaa laakiin marmar qaarkood saarim isleedahay waxyaabahan oo kale waxay micnaha maxal lahaa ay caqabad ku ah amniga dartiisa maadaama dalkii hadda meelo badan hadda ay dib u xoreen ka socoto oo dhibaato amniga ay jirto in dawladda inay dhinaca amniga ay marka hore inta xoog saarto kadib waxyaabahan kalena ayadoo wali la wado waxay galintii haddana in dhibaato kale ay jirto saas darteed in caqabadahaas islaada Soomaa runtii aniga horta amniga waa muhiim macnaa meelan amni jiran waxba lagama qaban karo taas waa dhab laakiin amnigi iyadoo la wada ayaa hawshii la isla garab wada intaan waa aragtay markay laami dhisayaan baabuurti meel kale ayaa loo baneeyaa way socotaa macnaa hawshii macnaa waa socotaa macnaa la isla wada sar 10 dabaqa la dhisaya jidkii maxirna wixii waa socdaan marka anagu amnigii wadna say hawshii waa kala qaybsantahay arrimahan oo haweenka oo looga hortagayo tacadiyadana inaan dhinaca kale ka wadno la islana shaqeeyo mideeda kale waxaan macnaa aan aniga aan leeyahay wadaadada maanta waa ku soo celcelinaya sababta wadaadada waa muhiim wadaadada Soomaaliyeed arintan tacadiyada haweenka inay macnaa ka hadlaan ma aha waa ka xumahay marmar in markii barnaamij la keeno oo la yiraahdo muxuu ahaayay waa wax laga soo min guuriyay macnaa muxuu ahaay gaalo waa fikrad ka timid gabdho Soomaaliyeed iyo rag Soomaaliyeed oo isu tagay maaha anaga wax kasta 88 magaalo ayaa hogaaminaysa maya fikirka wuxuu ka yimid gabdho Soomaaliyeed waa la shaqeynaa dad cadaan intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku wareysanaynay Dictoressa Sahra Siyaad Naalaye oo ah madaxa mashaariicda hay'adda EFSAN oo ka sheekeynaysa tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed isla markaasna aanu ka wareysanay arrimo badan oo ku saabsan arrimaha gudniinka gabdhaha haddii aad rabtid in aad su'aalo intaas ka badan iyo jawaabo aad rabtid gaar ahaan dadka ku nool Holland waxa aad la xiriiri kartaan hay'adda EFSAN iyo waliba Sahra Siyaad Naalaye inta aan barnaamij mid ka lamid ah ku kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo dhinaca farsamada iyo kaamirada waxa barnaamijkan ka hagayay Maxamed Cabdi Faarax Afgooye. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.